walba ka qurux badan gabadh muuqeedu qurux badan yahay dhaqankeedu qurux badan yahay akhlaaqdeeda dhinac walba ka qurux badan haddaba culimadu ilaahay xigmadaha ku manaystay waxa ay ragga uga digeen inay toddoba nooc dumar kamid ah ay guursadaan haddaba ninka ragga ah gurdoonka ah waxa laga rabaa inuu iska ilaaliyo hablaha sifooyinka noocan ah leh intuuna guursan ka hor waa talooyin murti ah sheekhani waxa uu leeyahay laa tazawwaju min an-nisaa'i sab'an al-annana wal-mannana wal-hannana والكنانة والحداقة والبراقة والشداقة intaasi oo noocba sheekhu wuxuu ku leeyahay ka digtoonow haddaba haddaan micnaheeda u gallo gabadha koobaad al-annana waa gabadha xanuunka badan leh waa gabadh mar walba leh waan xanuunsanayaa wax yar daba durto waan xanuunsanayaa iyaduna xanuunsanayn mar walba leh waan xanuunsanayaa waa gabadh tacbaan midhan ah oo xanuun ilaahay u keenin iyadu si saaraysa gabdhaha noocaasi oo kale ah iska ilaaliya buu leeyahay sheekhu gabadha labaad almar'atu almannana waa gabadh mar walba kugu manna sheeganaysa maalinba wax ku siinaysaa amba ku caawinaysaa kadib bay kugu manna sheeganaysaa mar walba wax ka oranaysaa waa anigii intaa ku siiyay waa anigii ku caawiyay waa anigii sidan ku yeel gabadha mannashada badanna iska ilaaliya buu leeyahay ta saddexaad waa almar'atu alhannana waa gabadha mal walba xaafadooda u socota waagii baryaba xagga xaafadooda hooyada baan u tagayaa aabaha baan u tagayaa waa gabadh socoto uun waa gabadhan zawjkeedii iyo kii qabay baan ixtiraamay iyo reerkeediiba socoto uun gabadhaas oo kalena iska ilaaliya buu leeyahay ta afraad waa almar'atu alkannaana waa gabadh aan reerkooda aan xushmaynayn adiga kula joogtaa waxay ka sheekaynaysaa hooyadeed iyo aabaheed aabahay sidan buu sameeyay aabahay saas oo oran jiray hooyaday mar walba waxay kaaga sheekaynaysaa xaafadooda fadeexada xaafadooda iyo reerkooda iyo aabaheed taasoo kalena adigana saas ma kaaga sheekaynaysaa marka taasoo kalena iska ilaaliya buu leeyahay tashanaad almar'atu alhadaaqa المرأة الحداقة waxa weeyaan gabadh ku dayasho badan qof bay wax ku arkaysaa amba gabadh saaxiibadeeda ay wax ku arkaysaa way ku imanaysaa waxa ku oranaysaa waxa ii iibi xaafadda wax ku arkaysaa way imanaysaa waxa oranaysaa waxa ii iibi marka gabadhan odaygeedii bay diiq galinaysaa iyo murugo wuxuuna hayn bay ku kalifaysaa inuu soo iibiyo noloshaada iyo mustaqbalkaaga ayay hoos u dhigaysaa noloshaada iyo mustaqbalkaaga ayay dib u dhigaysaa waayo ninka ragga ay xaaskiisa unbaa kor u qaada amba hoos u dhigta oo ragga qeyrkii ah ka reebta marka gabadhaas oo kalena ha la iska ilaaliyo tilixaad almar'atu albaraaqa waa gabadh dabeecad xun oo weliba kibir u raacsan yahay marka ku soo fiirinayso waa gabadh si xun ku soo fiirinaysa oo ku cabsi gelinaysa oo gidigaagiiba rabta inay ka adkaato waa gabadh dagaal badan oo markii ku aragtaba dirir iyo dagaal kala dul baxaysa ilaa heer ay kula gaadho heblaayayana ka cadhaysiin ee wax walba ay rabto waa inay isaga sameeyaa si iga aamusto toddobaad waa almar'atu shadaaqa waa gabadh hadal xun oo hadalkeedu xun yahay oo marka kula fadhiisataba ka sheekeynayso hadal xun oo ummadan dhib u geysan oo waxba u geysan carabkeeda ku dhibaataysa waa gabadh aad u xan badan oo waxba qarin oo cid walba ka sheekeynaysa marka taas oo kalena iska ilaaliya buu leeyahay sheekhu kulli waa